When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation. وعن أونكسن أخيار تهود النقل حديد الساي وحد كسر دواتان برنامج كني سبورتيكا الراديو كا الصومالي دولن عاونا وحن كسر قادم دونا كوب كأدون كأيكو بدا عكتا إلا بدا كن إيطبنكا ساوث أفريكا لغو عياريو برنامج كني هوري وحد كما قشين تاريخ دا أفريكا كوب كأدون كا إيا كالنتي أي كسر قشي قارد أفريكا كوب كاسي أدون كا هطبا كوب كان محوك قدوية هاي لبدا كن إيطبنكو kuwii hore loo ciyaaray ee adduunka waa hagaag koobka adduunka ee kubadda cagtu dhageystayaal waa tartanada la ciyaaro ka ugu weyn ee caalamku agaasimo kaasoo kulmiya ummado ku kala duwan diinta dhaqan luqad jinsi midab qowmiyadda afkaarta iyo qaarado kala duwan oo waqtiyada qaarkood ay ku hirdamaan wadano oo khilaaf siyaasadeed u dhaxeeyo waxa koobkan shucuur gaar ah ka muujiyay isagoo ilmeynaya Nelson Mandela oo ka mid ah halyeeyada Afrika ee weli nool markii ay soo shaac baxday in lagu qabanayo dalkiisa dariiq dheer ayuu soo maray Mandela sidiisaba waxaa loo xidhay midabta koor waana la soo daayay oo madaxweynihii dalkaasi Koonfur Afrika ayuu noqday koobkii adduunkana dalkiisa ayaa maanta loogu keenay marka inuu ilmeeyo soo gartii maaha koobka adduunka ee Koonfur Afrika lagu qabanayo sanadkan waa kii 19aad ee lagu qabto dunida South Africa oo loo doortay bishii May 2005 in ay qabanqaabiso koobkaasi FIFA ayaa garwaaqsatay in lagu qabto 2010ka wadan Afrikaan ah maadaama aan hore loogu qaban qaaradda libaaxyada geela harimacadka shabeelka maroodiga iyo guud ahaanba duurjoogto oo weligood dulman waxa 14 cod ku qaatay Koonfur Afrika oo Morocco ka badisay iyadoo 10 cod oo kaliya ay heshay Morocco sidaasaana la isugu raacay in lagu qabto dalkaasi South Africa magaalooyinka iyo garoonada lagu ciyaari doono waxaa ka mid ah Bloemfontein, Durban, Johannesburg, Kimberley, Kaapstad, Pittsburgh, Rustenburg, Port Elizabeth iyo ugu dambeyn magaala madaxda Pretoria ee dalkaasi Koonfur Afrika xiriirka kubadda cagta ee FIFA ayaa sidoo kale diyaarisay 3 milyan oo ah tigidhada lagu gelayo ciyaarahaasi waana guud ahaanba 64 ciyaarood oo ay isaga hor imaan doonaan 32 dal oo adduunka ka kala socda saacadda Koonfur Afrika haddaan idin xasuusiyo dhageystayaal waa GMT+2 waa saacadda GMT da la yiraahdo oo 2 saacadood lagu daray laakiin samarka oo kale ama xagaaga Amsterdam, Berlin iyo Paris waxay la mid noqonayaan saacadaha Koonfur Afrika dadka Ingiriiska deganna saacad ayaa iyaga iyo Koonfur Afrika u dhaxayn doonta guud ahaanba waxa ku nool dalkaasi Koonfur Afrika 740 milyan oo qof oo qaarkood ay ka kala yimaadeen dunida daafaheeda inkastoo ay intooda badan yihiin dad qaaradda u dhashay oo madow ah koobka adduunka ee 2010 waa tartankii 19aad ee la ciyaaro laga bilaabo 1930 ilaa imika guud ahaanba waxa la soo ciyaaray oo kan ka horeeyay 18 tartan oo ahaa intii u dhaxaysay 1930 ilaa 2006 18 tartan ee hadaba dhageystayaal hore loo soo ciyaaray 9 koob waxa ku guuleystay kooxaha qaaradda Yurub sida Italy ama Talyaaniga aan dhahdo 4 jeer ayay gacanta ku dhigeen koobka adduunka ee kubadda cagta waar ayaan badanaa oo nasiib badanaa Germany ayaa iyana 3 mar ku guuleysatay Faransiiska iyo Ingiriisku min mar kaliya ayay ku guuleysteen liiskuna uu dheer yahay in dadka marmar ama kooxaha marmar ku guuleystay dhageystayaal qaaradda Latin America haddaan iyadana u gudbo ama Koonfurta America
waxay ku faantaa iyana 9 koob oo ay qaadeen waxaana ka mid ah wadannada Latin America ee ku guuleystay koobka adduunka ee kubadda cagta. Brazil waa madaxdii sare weeye oo aan loo dhawaan karin 5 jeer ayay ku guuleysteen koobka adduunka ee kubadda cagta. Argentina ayaa ku xigta oo iyaduna 2 jeer ama 2 mar ku guuleysatay sidoo kale. waxaa 2 goor sidoo kale ku guuleystay iyaguna koobka adduunka dalkaasi Uruguay waa dalkii ugu horeeyay ee lagu qabto adduunka kubadda cagta. haddaba marka koobka lagu qabto Yurub waxa ku guuleystaa dhageystayaal dalalka qaaradda Yurub haddii lagu qabto qaaradda Yurub ayaa ku guuleysanaysa inta badan. koobka lagu qabto Latin Americana waxa isla sidoo kale ku guuleysta dalalka Latin America marka laga reebo koobkii lagu qabtay Japan iyo dalkaasi South Korea koonfurta Korea 2002 iyo America oo 94kii lagu qabtay oo halka ay Brazil koobka ku guuleysatay. qaaradaha adduunka sida Africa iyo Asia ayaan weli iyagu marnaba ku guuleysan koobkaasi inkastoo ay Africa xagga isboortiga aad ugu wanaagsan yihiin dadka Afrikaanku. وهجاج دقيستيال 2010 ayaa ah koobkii ugu horeeyay ee lagu qabto qaaradda Afrika oo waa koobkii ugu horeeyay ee 6 wadan oo Afrikaan ahi ay ka qayb qaadanayaan. koobkan waxa wax lagaga bedelay kubadda lagu ciyaaro oo nashqadeeda wax lagu kordhiyay waxaana lagu sawiray 11 kalar oo kala duwan kuwaas oo ka turjumaya ama lagu sharfayo 16 luqadood oo lagaga hadlo dalkaasi South Africa iyo 11 qabiil oo degan iyaguna dalkaasi 11 midab ayaa haddaba ka turjumaya astaana u ah ummadaha kala duwan ee dalkaasi ku nool waxaana isla markiiba cabashooyin ka muujiyay kubadahaas cusub ee lagu ciyaari doono koobka adduunka goolwalayaasha oo ay ka mid yihiin Gianluca Buffon oo Talyaaniga biraha dhexdooda u jooga waxaanu tilmaamay in aanay kubaddan cusubi ku habboonayn garoonada. Julio Cesar goolwadaha Brazil ayaa isna ku tilmaamay kubaddan in ay la mid tahay kuwa suuqa lagu gado ee aanay ahayn kuwa FIFA ay samayso. iyo ugu dambayn Iker Casillas goolwalaha dalkaasi Spain oo isna sidoo kale aan ammaanin kubadda cusub ee koobka adduunka ee kubadda cagta. haddaba koobkan ayaa ah mid si aada laysku weydiinayo in ay dadka reer South Africa ay sugi karaan magangeliyada iyo nabadda dadka imaanaya dalkooda. koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka adduunka ugu dilalka badan iyo tuugada waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa sugidda caafimaadka iyo gaadiidka loogu kala gooshayo magaalooyinka iyo garoonnada kala duwan. haddaba su'aalahan oo dhan FIFA ayaa xaqiijisay in ay hore koonfur Afrika uga jawaabtay taasoo ka dhigaysa South Africa in lagu qabto koobka adduunka ee kubadda cagta sanadkan. waxaa sidoo kale dhowaanta faraha laga qaaday 5 garoon oo cusub iyo wadooyinka tareennada oo la casriyeeyay. Afrika oo adduunku ku soo jeedsan doono muddo bil ah ku dhow ayaa koobkani kaga duwanaan doona kuwii hore. Afrika guul waxa uu ah in lagu qabtay sanadkan koobka adduunka ee kubadda cagta iyo haddii uu si wanaagsan oo nabdoon koobkaasi ku dhammaado. koobka qudhiisa haddii aan wax ka xusno FIFA ayaa dhowrkii sanaba mar keentay koob ka samaysan qayb ahaan dahab. koobka iminkana waa kii labaad ee la dhigo waxaana ka horreeyey mid hore loo odhan jiray Jules Rimet Cup kaasoo la dhigay 1930 ilaa 1970 intii u dhaxaysay waxaanu xeerkiisu ahaa in kooxdii ku guuleysata 3 jeer ay la tegi karto ama xalaalaysato. koobkaasna Brazil ayaa 1970 la hoyatay oo waxa ay ku guuleysatay 3 goor 1958 iyo 1962 iyo 1970 waana 3 jeer ee xeerku u dhigay ayay buuxisay. koobkaas kadib FIFA waxay ka bedeshay magacii koobka hore ee adduunka iyo xeerkii u yaalay ee xalaalaysiga ahaa. FIFA waxay ku bedeshay koobka hore koob lagu magacaabo FIFA World Cup koobka adduunka ee xiriirka kubadda cagta. laga soo bilaabo 1974 kooxdii ku guuleysata hal mar ama wax ka badan in abaalmarin la siiyo oo aanay xalaalaysan koobka qudhiisa. dhinac kale markaad ka eegto koobkani waa koobkii ugu horreeyay ee magaca FIFA ku xusan ee ilaa imika lagu tartamayo. وهجاج وحن دقيسيال إمكانه وحي يرجع لاعي دونا كوب كأدون ككون 1930 إلا لبدا كون إيه اللحدي
taariikh sugan iyo dhacdooyinka laga xasuusto sannadihii la ciyaaray ilaa iyo maanta